الله تعالى وبركاته دمان بالشوين الصومالي ميركستي الدنيا الدافية دا كتشوك تامبا وحن إليه هاي عيد مبارك ربي عيدا عيد دا باش إيا برواقة هاي نقو قارسيو ما انت waxaan doonaya inaan idin la wadaago video aad iyo aad u qiimo badan ina soo jiitay waa wiilka aad arkaysaan run ahaantii lixdiisa lixaad uma dhamaystirna sidoo kale miyirkiisa wax yar ayaa ka siiya alxamdulillah si kastoo ahaataba uu ku qanacsan noloshiisa balse sirta ka dambaysa inuu halkaas soo fadhiisto ayaan idin la wadaagi doonaa wiilkani maalin kasta oo ilaahay keenaba wuxuu fadhiyaa meeshaas wuxuuna ku iibiyaa lintaad arkaysaan ee sida u xilxiran subhanallah waa lixdiisii lixaad uma dhamaystirna sidoo kale miyirkiisii uma dhamaystirna haddana waa wiil maasha allah tabaarakallah waa wiil ku dhiiraday halkay kuwii lixda lixaad qabeen ee maanta caafimaad qabay ee lixdoodii lixaad ee miyirkooda u dhamaystirna halkay ku dhiiran waayeen ay wadankeeni maanta qaarna isqarxinayaan qaarna dadka dilayaan qaar dadka dhacayaan qaar subhanallah qaar maqaxiyaha fadhiyaan qaar hooyooyin masaakiina dhibayaan subhanallah ayuu isagu muxuu sameeyay isagoon lixdiisii lixaad u dhamaystirna xataa miyirkiisii ilaahu xafidiya rabbigayo ya allah adduunkan waxaa jira dad aad iyo aad u wanaagsan balse aanay cid daryeesha ama cid oga oo rahantii wanaagooda u sheegto tiradooda wanaagsantiin aanay jirin balse sirta ka dambaysa videogan ama inaan kan inuu halka fadhiisto maalin kastaba waxa weeye wiilkan wuxuu dhashay isagoo oo rahantii lixdiisa lixaad aanay u dhamaystirnayn miyirkiisuna aanu taam ahayn balse markii dhalashadiisii kadib adigu run ahaantii hooyadii macaan oo aad ula soo rafaaday muddo kadib hooyadii way xanuunsatay wuxuu sameeyayna uu garan waayay kadib run ahaantii waxa uu fikiraba dad masaakiina oo adigu u dhow ayaa waxay ku caawiyeen inuu miis yar meel la fadhiisto wada ah halka uu ku qanacsado ku sameeysto noloshiisa waxa uu rabo run ahaantii dabadeed waxay ka caawiyeen inay alaabtiina u soo iibiyaan meeshiina run ahaantii alaabta ay u soo dhigaan kadib wiilkii muddo wuxuu ku qanacsadaa meeshaas wuxuuna ka biiliyaa hooyadii oo xanuunsan oo kici karin runtii waa arin aad iyo aad loola yaabo halkay dad caafimaad qaba lixdoodii lixaad waalidkooda ay caasiyayaan dhibaataynayaan xumaynayaan dilayaan qaar aflagaadeynayaan qaar aanay laba soo hadlaynba qaar aanay run ahaantii qiimo iyo qadar midnaba aanay u haynin subxaanallahi alcadiim waxaan ilaahay uga baryayaa hooyooyinka masaakiinta ah dhammaan hooyooyinka muslimiinta ah in ilaahay rabbi watacaala inuu aakhiri iyo adduunyaba wax dhiba aanu tusin meel kastay dunida daafeeda ka joogaanba dadka sidan oo kalena biidnillaahi kariim in la garab qabto la dhinac istaago loo hiiliyo run ahaantii mar kastaba la daryeelo aan ilaahay iyo ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiintaba uga barya biidnillaahi kariim fadlan qofkii arka qof noocan oo kale ah noloshiisana run ahaantii raba inuu isbedel sameeyo fadlan ku caawi garab istaag ilaahay adigana ku caawiyo biidnillaahi kariim farxadda ka muuqata balda maasha allah farxadda ka muuqata wajigiisa bal eega Soomaaliya lixdiisa lixaad wallahi xataa lacagta ma xareysan karo waa loo xareynaya eega wallahi xataa miiska hodhow waa loo qaadaya ma qaadan karo subhanallah halkay qaar lixdeedii lixaad qaba ay maanta waalidkoodii mid caawimo iska daayay xataa hadalkii wanaagsan ay kala bakaylayaan subhanallahi alcadiim hooyo meel kasta dunida daafeeda ka joogta rabbi aakhiriya adduunya wax ku dhiba kuma tuso biidnillaahi kariim meel kasta hooyo dunida daafeeda ka joogtaba rabbi dhammaan muuminiinta muslimiinta hooyooyinkooda yaa rabbi muuminiinta islaamaha masaakiinta muuminiinta ah
waalidiinta muuminiinta ayaa rabbi u naxariiso yaa rabbi meel kasta dunida daafeeda ka joogaan yaa rabbi waalid caasiga ha ku eegin ubadkooda waalid caasiga rabbi ha ku eegin yaa allah gargaarkaaga yaa rabbi gargaarkaaga meel kale uga fidiy rabbiga dhammaan bulshada Soomaali fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad videogan sii share gareysaan oo la wadaagtaan asxaabtiina haddii ay jiraan agtiina dad sanoo kale ah fadlan garab istaag caawi ilaahay dartii u garab istaag adigoon cidna waji ka rabin waxaad u taraysana u qabo adigoon cid kale la raadsanaynin kow iska bilow maxaad qaban kartaa oo u tari kartaa qofkan ha yaraata ha badnaato wixii aad allaala waxaad qaban karto qabo adigoon cid kale ba raadin isku day inaad adigu marka ugu horeysa u qabato waxaad u qaban karayso kadib insha Allah biidnillaahi kariim la kaasho wixii kale ee run ahaantii aad la kaashan karayso balse marka ugu horeyn qofka ugu horeeya ee arkaaba ha iska bilaabo isagu naftiisa wuxuu allaala wuxuu qaban karo ha qabto ha yaraata ha badnaato subxaanallah bal eega ilaahay baan ku daariya ma xareysan karo alaabtii eega walaalayaal subxaanallahi alcadiim allah caawinaya subxaanallah fadlan caawi qofkii kasta ee agtaada ku dhiban adigoon qofna ku eegeynin qofna ku haleyneynin ama dowlad iyo cid aynu isku diirnaxno Soomaaliyeey run ahaantii imtixaankaas iyo dhibaatooyinkaas inagu socdaa waxa weeye waa naxariis la'aantii aynu daawanayno bulshada agteena ku dhibaataysan dadka agteena ku cuqubada run ahaantii aan cunayna hal iska joojiyo Soomaaliyeey fadlan cuqubada aan cunayna hal iska joojiyo qofka agteena ku dhibaataysan wixii loo qaban karayo ha loo qabto ha yaraata ha badnaato Allah yabaarak fiik ya akhuy ilaahay ku xafido ya akhuy fadlan halkan nagala socotay waa wehelka dadweynaha fadlan share comment like haddii aad nagu cusubtayna please subscribe